wararkii ugu dambeeyay ee doorashada dalka Turkiga oo markaasi aad ay isku hayaan madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo sidoo kale ninka sida dhow oo la tartamaya Kemal ayaa ilaa iyo hadda markaasi waxa la leeyahay waxa ka dhacay Turkiga doorasho ka duwan doorashooyinkii ka dhici jiray. Recep Tayyip Erdogan waxa uu xilka markaasi madaxtinimada dalkaasi qabtay 2003 tan iyo markaas Recep Tayyip Erdogan waxa uu soo mari jiray doorashooyin oo markaasi uga gudbo wareegga koowaad oo kaliya, balse doorasho adag oo markaasi uu kala kulmay isbahaysi adag oo ay sameeyeen mucaaradka oo inta badan la leeyahay waxa ay taageero ka helayaan wadamo badan oo reer galbeed ayaa waxa ay markaasi madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku guuldareystay inuu gaarsiiyo codadka 50% si uu markaasi wareegga koowaad ee doorashada ugu guuleysto sida ay ku qoran xeerarka markaasi gudiyada doorashooyinka ee dalkaasi Turkiga. Recep Tayyip Erdogan ayaa markaa heli waayay aqlabiyad ku filan si uu markaasi ugu guuleysto doorashada wareegga koowaad, taa oo ka dhigan in markaasi wareeg labaad ee doorashada markaasi la aadi doono. codadkii la dhiibtay boqolkiiba 49.3 ayuu Recep Tayyip Erdogan isagu markaasi ku guuleystay, balse waxa loo baahnaa inuu helo boqolkiiba 50 ama inuu wax ku daro si markaasi uu u noqdo ninka ku guuleysta doorashadaasi. muusan helin codadkaasi, laakiin waxa uu helay boqolkiiba 49.3, taa oo ka dhigan in markaasi uusan markaasi helin ama uu helin halkii loo baahnaa uu gaarin si ay wareegga koowaad doorashada ay dalkaasi ka dhacayso usoo ilaato. waxa kale oo markaasi jira in natiijada codadka oo intooda badan la tiriyay ilaa iyo hadda ay muujiyeen in Erdogan uu xukunka markaasi isaga hayay tan iyo 2013 welina aan markaasi looga adkaan doorasho in ka badan hal wareeg ayaa waxa uu markaasi hadda ku guuldareystay inuu geeyo ama uu gaarsiiyo codadka halkii looga baahnaa. laakiin Erdogan oo isagu markaasi bartiisa Twitterka ku soo qoray xilli ay markaasi socoto tirinta codadka qaybo kamid ah dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inay weli aaminsan yihiin inay sii wadi doonaan uu markaasi dadaalka ay ku guuleysanayaan ama ay rabaan inay ku guuleystaan. wuxuuna sheegay inay u sii adeegi doonaan shacabka 5 sano ee soo socoto. waa sida uu markaasi sheegay Recep Tayyip Erdogan oo isagu hadda 69 jir. waxa uu sidoo kale markaasi sheegay in xisbiga talada haya iyo xulafadooda ay heleen aqlabiyad cad oo markaasi dhanka baarlamaanka ah. tirinta codadka ee wakaalada wararka dawladda ee Anadolu ayaa muujinaysa in Erdogan uu helay 49.3. hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu ayaa kaalinta labaad ku galay 45 codadkii la dhiibtay boqolkiiba inta uu isagu markaas helay, taasi oo ah natiijo niyad jab ah kadib markii codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay muujiyeen in uu markaasi ka horeeyay Erdogan. waxaana dhanka kale markaasi ilaa iyo hadda la yaabin yahay qaabka markaasi ay macquul ku noqotay xilli markaasi dhowr jeer oo horey la sameeyo codadka ra'yiga oo iyagu markaasi uu ku horeeyay ninkan oo markaasi isagu ay soo xusheen mucaaradka oo iyagu markaasi isbahaysiyo dhisay. doorasho ku celis ah oo tii ugu horeysay taariikhda ayaa la qorsheeyay inay markaasi dhacdo 28 May markaasi sanadkan. Kemal oo isagu ah 74 jir ayaa rajabeel markaasi ka muujiyay sida uu markaasi u sheegay wariyaasha, isagoo sidoo kalena markaasi u muuqday inuu markaasi ku guuldareystay maadaama uu isagu markaasi doonayay in wareegga koowaad uu ku guuleysto sida markaasi ay dhigayeen nambarada ama tirinta markaasi codadka ra'yiga ee horey markaasi loo soo saaray, taa oo cadeynaysay inuu markaa isagu noqon karo shaqsiga markaasi ku guuleysto. dhanka kale waxaa hoos u dhacay qiimaha lacagta lira ee marka loo eego dollarka iyo euro kadib markii maalgashatada reer galbeedka ay ka niyad jabeen natiijada, iyadoo ay markaasi u muuqato in Erdogan dib loo soo dooran doono. waxaa codeeyay in ka badan 90% codbixiyaasha markaasi diiwaan gashan, taasi oo muujinaysa xamaasadda iyo xiisaha shacabka ee doorashada. Erdogan ayaa waxaa si aad ah markaasi u taageersan muxaafidka ama dadka diinta ku adag ee Turkiga, halka mucaaradka ay taageeraan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ama markaasi caalamiga ah. Sinan Ogan oo isagu ah musharaxa saddexaad ayaa helay 5% codadka doorashada, waxaana hadda muhiim noqon doontaa cidda uu taageero wareegga labaad ee doorashada. si kastaba ha ahaatee, maadaama xisbigiisa
ay markaasi ku aragti yihiin kan Erdogan oo ay markaasi ka midaysan yihiin wadaniyadda iyo ku adkaanshaha diinta waxay u badan tahay in codadkii uu helay ay markaasi badankooda aadi doonaan dhanka markaasi Rajab Tayyip Erdogan wareegga labaad. waxaa ilaa iyo hadda markaasi la filayaa in ay markaasi doorashada wareegga labaad dhacayso iyaduna ay markaasi xirdan adag uu ku dhaxmaro iyadoo oo markaasi la filayo inuu ka adkaado wareegga koowaad. dhinaca kale xisbiga Erdogan ee AKP iyo asxaabta markaasi xulafada la ayaa ku guuleystay iyagu aqlabiyadda baarlamaanka iyaga oo helay 323 ka mid ah 600 kursi ee baarlamaanka ilaa hadda codadka la dhiibtay.